waxaan sheegi doonaana qaar badan oo hadda dhahayo Somaliland iyo annaga iyo Somaliland oo isla socona ayaa waxa laga yaabaa biri anagoo wada ooyeyna inaan difaacno wixii aan wada dayacnay waxay yiraahdeen Israa'iil waa dawlad awood leh waxaan bedeli doonaa maapka inay bedelaanna Israa'iil kaliya ma sameyn doonto waxa la sameeyay Trump intuusan tagin bay rabaan inay sameeyaan Arab 4.2 trillion ay bixisay waana ceeb mana anficin bismillaahir rahmaanir rahiim daawadeen ku soo dhawaada barnaamij aan ku falaqeynayna hadaladii xalay ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu aad u dhaleeceeyay kala duldhacay dadka Soomaaliyeed balse ma ahan mid maanta koob ku ah madooyinka dambe wuxuu wada dhaleecayntaas isagoo si toos u ataagay ama weerar ku qaadayay haday noqon lahayd dawladnimada Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool dalka Mareykanka haday noqon lahayd kuwa siyaasiyiinta dalka Mareykanka oo ay ka mid tahay Cumar iyo guud ahaan habdhaqanka dadka Soomaaliyeed oo ku sifeeyay inay yihiin dad aad u liita erayadaas oo aad wada weli inaysan dawladda Soomaaliya ka falcelineen haddaba ujeedada uu ka leeyahay ayaa wax dad badan oo kala duwan ay ku sifeeyeen inay tahay mid ka weyn sida dadka Soomaaliyeed u arkaan qaar baa waxay ku tilmaamayaan inay tahay mid uu ku qarinayo mashaakilada isaga gaar ku ah iyo eedo badan oo looga haysto gudaha Mareykanka waana xaaladda keentay inuu ciidan ku sii daayo magaalada Minnesota iyo goobaha ay degiin dadka ajaanibka oo uu u sameystay ciidan gaar ah oo iyagu dadka qabqabta dhanka kale waxaa la leeyahay waxaa jira eedo dawladdiisa ay wajahaysa gaar ahaan isaga shakhsiyan ballanqaadyada uu dadka Mareykanka u sameeyay oo la sheegay inay waxba aysan ka fulin taasina ay tahay isku qaris iyo boor isku qarinayo haddaba si aan wax badan arrimahaas uga ogaano waxaan marti loogu studio maanta oo aan wada falanqeynayna arrintaas Professor Shaafici oo ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda Professor Sulu mahadsanagaasime waa salaamayaa teamka dhammaan Carlson TV. Nobody talks about the fact that $19 billion at a minimum is missing in Minnesota, given to a large degree by Somalians. They've taken it. Somalians, can you imagine? Professor, xalay wuu hadlay Trump. Bariyahan uu hadlay. Isbalka waran sidee u aragtaa hadalada Trump ma waxay ku kooban yihiin aflagaadada iyo cayda bulshada Soomaaliyeed caynaya mid ku eg dalkiisa gudaheed mise dan kale ku jirta aslada agaasimo saad sheegtay waan xaqadu ma ka weyn tahay mise waa inta kaliya wayna intaas dawladda Soomaaliya baaritaan ku sameeyso aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee media waa arin khatar ah horta jawaab ahaan markii la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ku leeyahay safaarad dawlad malay uu yiri agaasimo waxa kale uu yiri wuxuu yiri waa dad low IQ aqligoodu uu yar yahay waxaana uu sheegay in ay 19 bilyan ay dhaceen marka qof low IQ ma dhici karo oo waa complicated halkaas laakiin su'aasha aad weydiisay oo yaa sax ah waxa xaqiiqo oo jirta inuu dan kale ka leeyahay way labo xabba noqon karto labadaas ayaa loo baahan yahay dawladda Soomaaliya inay ka fikirto intaan la gaarin istiraatiijiye ay ka sii sameysto kamida labada waxa weeyaan Trump waa caddahay wayna dhici doontaa horena oo soo sheegnay wuxuu rabaa in koonfurta Soomaaliya ay nabad la'aan noqoto fariin ay dirto diblomaasi inaan nala yeelanin oo bacdigeedna shabaab ay dalka qabsadaan oo bacdigeedna ay suurto gasho Israa'iil ay jaanis u noqoto Sambata inta halka lagu mashquulsan yahay Israa'iil danaheedii suurto gasha dadka qaar waxay leeyihiin Trump ku dhacaysa markii la fiiriyo Greenland iyo waxaanu ka sameeyay Venezuela wuxuu ku dhici karaaba inuu strategical isagu military ahaan isticmaalo without justification ICE waxay sameynayso Soomaalida oo doctorisa engineer aad wax uga qabtay cadaankii wada jecelyiin waxaan uu baariyo dawladdu uu eedenayo waxa xaqiiqo in strategy taalo inuu isagu xataa weerar ka mid noqdo waxaana uu u yeelayaa Great Israel ayuu member ka yahay oo doonaya maadaama uu Zionistiga ka mid yahay marka waxay u taalaa dawladda Soomaaliyeed waxay u taalaa cilmi baarista waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan waxa tiri oo soo hadal qaaday waxa suuragal inuu rabo in shabaab ay dalka qabsadaan waxyaabaha cadeynta oo arrinkaas uskalis waxyaalaha cadeynta ka mid ah saaka weerar uu geystay it's okay waayo wuxuu u socday wuxuu difaacayay xarun uu ku leeyahay Lamu agteed ayuu difaacayay wuxuu ku dhahaa weeraray waxa aad bay wanaagsaneed shabaabku marka ay ka soo baxayeen koonfur galbeed oo aadayeen xaggaas waxay awoodeen in la weeraro shabaabku marka ay xoogeysanayaan dhaqaaqayaan maadaama ay leeyihiin ay la socdaan ma weeraraan
waxay weliba heestaan gudaha shabaabda ku jira information ogyiin waxay u isticmaalayaan as a proxy hadalkaas waxaan ka wadaa oo daliil uga dhigaya Hillary Clinton waxay tiri waxaan abuurnay we created al-Qaeda inaan destroy garana Soviet Union markaan burburinayna waxa ka dhashay ISIS oo kansar uu noqday adduunka waxa la isticmaalaa waxaan terrorist waxa loo isticmaalaa as a in harb al-wakala waxa loo isticmaalaa in dal lagu gumaysto Nigeria waa tay dhahayeen waxaan u qaybinayna baashi marka hadda waxa la ogaaday shabaab ha noqdaan Daesh ha noqdaan in loo adeegsado danaha marka waxa weeyaan Soomaaliya shabaab ka jiro waxa toos u taageera dawladda Mareykanka isla ayaga ayaa sanadkooda ka dhax sheegay waxay yiraahdeen oo waxay dhaheen 42 milyan ayaan sanad walba USAID siinaysa Soomaaliya iyo Boko Haram su'aasha jawaabteeda weeyaan yani ayaga ayaa toos u qirtay oo waa last year ba waqti fog maahan yani waxay caawinayaan saas darteed u joojinayna marka waxa markasta inaan sugnamahay waxaan anagu ognahay wax diblomaasiyiinta ogyiin waayeen toos waxa al-Daesh iyo kuwan u taageera dawladda badan ay kamid yihiin marka kamid ma ahan maslaxada Soomaaliya kamid ma ahe danaha Mareykanka ayay u socdaan dawladda laga rabaa marka inay ku qanciso inay siyaasadda iska bedesho oo toos nolol socoto وكسته دولة أمريكا waxaa ku sifaysa inay ayadu tahay mid danaheeda oo isticmaalayso xaaladaha dagaalka ay ka fuliso Soomaaliya iyo Nigeria iyo meelo badan waxaa tusaale soo qaadatay lacagtii USAID-ka lagu eedeeyay inay ku bixin jireen oo Congress-ka laga tilaashay ma jiri kartaa marka ama suuragal ma tahay Trump sida uu u weeraray Venezuela inuu Soomaaliya u soo weeraro maadaama aan ognahay inuu Venezuela la wareegay anigu ma bacisanay wali waqti fog ma sugayo لأنه وحال ربا دون كل كلا بحال ربا حالي وحال دقيسني رزارها كندا أيو تصوح وشاقي كلا جور لقوم الجرا international system وبربري أيو يرو ومركي ورسي شلينا وحاضي فرنسا مركي ورسي European Union وين مال جلين كرادين مركا أنا أيها هذين إنما هنا مريكان كوح كواستوا كسورته يعني وحقوق قبتي يوروب وحقوق قبتي لما كون إيو لواتين تضبط إن إسكو في اللاتو أيقون وحي قبسدين لو كوسدان نينك يوروب ساو قال الصومالي محمد بن نسا وحان هبا إنه يسوق دجال قادي دونه dib loogu noqdo sidii aan 1993 isaga celinay haddana istiraatiijiyadan alliance-ga la badiyo haddii uu isku dayo istiraatiijiyadiisa Israa'iil la socoto dagaal waa inaan diyaar garownaa Soomaaliya marka waa dawlad tabarteedu ay yarta aad iyo aad dawladda Soomaaliya waxa moodaa inay tahay dawlad aan awoodeedu ku fidsan dalka Soomaaliya si lamida dawladda Soomaaliya sidee suurtagal ugu noqonaya arrintan inay u hesho garbo maadaama Mareykanka aan ognahay inuu yahay awoodda maanta dunida horboodaysa ruushkina aan moodid inuu ku eeganayo amase ayba jirto in dalalkii xoogga lahaa nin walba danihiisa gaarka Ukraine ruushka uu gacanta ku haysto Mareykanka inta kale uu soo hartay uu ka shaqaysanayo sidee marka Soomaaliya ay kaga badbaadi kartaa khatarta una heli kartaa alliance ka difaaca ama kala qayb qaata arrintan warunta horta khatar baa jirto oo Soomaaliya hadda way dadaalaysaa shalay waxaan tagay civil hay'adan dawladda sare إلا 5 diyaarad baa hawada laga celiyo sharci darra laba waxay ku guuleysteen ay soo galaan intuba waxay in Israa'iil ma fududo waxaan tagay marka maariyaha aham calin oo aad ka naxayso wajigaagu soo aha waxay soo jeedeen habeen oo dhan bay soo jeedeen marka waxa weeyaan Soomaaliya ugu guuleysan waa labada kale inay soo galaan waxay damsadeen raadalka marka waxay wadeen dacwo international kawa ayaa la sugu imaadaa mogta sharcigan uu dumay hadalkaad sheegayso waxa Soomaaliya ma ku filan tahay waxaa jirto iskaashi Soomaaliya caawinayo Pakistan Masar iyo Hindi iyo Turkiya waa tay heshiis galeen Sudan waxa la siiyay G17 oo diyaaradaha markiiba waa la burburiyay Soomaaliya waxay istaa Janis ayna ayadu keenin oo environment ku keenay taasa waxa laga rabaa Soomaaliya inay dedejiso diyaaradaha u baahan tahay inay dhaqso hesho waa tan hadda aan u sameynay internationalka inaan la hadallo oo Soomaaliya waxay u baahan tahay aanu sheegno danaha anaga aan kala hadalno waxa marka Soomaaliya waxay u baahan tahay in ay u diyaar garowdo ay barina tagto Yurubna maadaama ay isku xiyeen ay tagto ay si isku difaaceeda degdeg ay dedejiso ciidamada badan ay dhisto Janis bay haystaa marka Janis bay haystaa dalal u baahan baa jirta Russia ayaga noo baahnada China ayaga noo baahan Yurub ayana noo baahan waa inaan danahooda tusnaa si aan u difaacano Soomaaliyana ay heshiis la gasho difaacdo مصر iyo Turkiya hadii la siiyay meesha sadda aan ka cabsanayno Israa'iil kuma dhacdo hadii ay ka faa'iideyso diyaaradihii la siiyay oo ay ka hortagaan diyaarad walba oo damsato markii la damsato waa la arkayaa radal 24 markaad aragto diyaaradda way damstay marka hadii laga hortago adoo sharciga caalamka haysto UN security ku fir ma awoodo marka Israa'iil xataa haday diyaarad ay F35 haday tahay inay ku weerarto
adaa marka laga raba hankaaga oo diyaaradihii kaciso marka dalkaaga kugu weerarsa ma weerari karto way kugu dayaysaa dad yeesho wax kala lagu dayaa marka dowladda Soomaaliya han yeelato hana dejiso waxay u baahan tahay istiraatiijiyad iyo locationkeeda dhaafsato waa gartay Trump wuxuu aad u dhaleecayaa Soomaalida maxay tahay sababta isaga uu ka cararayo ee uu dagaalka u qaaday Soomaalida gudihiisa waxa ka jira maxay yihiin oo lagu sifeeyay waxa loo warbaahinta inay sheegayaan in dhaliil iyo aad fara badan lagu isticmaalo taa ka war والله kiiskan Epstein iyo la sheegayo iyo midterm ka dhow way ka weyn tahay Trump waxaas waxba uma arko waa nin adkaysi badan waxa uu doonayaa istiraatiiji imperatoriyad inuu adduunka sameeyo oo Mareykan kaliya adduunka ka taliyo taas ayuuna u sameynayaa inuu normalize gareeyo inuu caadi ka dhigo hadhowto Soomaaliya hadduu weeraro qabsado inay caadi tahay hadduu shabaab yiraahdo ha qabsadaan oo igala heshiin caadi tahay hadduu intuu koonfurta soo hadda doonayay inuu ka dhigo meel aan deganeen oo waqooyi ka dhigo dawlad oo intaas ay Israa'iil ay ku helayso meeshii carabta ka weerari lahayd caadi tahay istiraatiiji ka weyn tan aan aragna ay wataa waxaan ognahay carabta wadamada Sacuudiga iyo Qatar inay saameyn ku leeyahay Mareykanka lacag ay ku bixinayeen booqashadiisa ugu dambeysay labada dawladood ee lacag fara badan iyo diyaarado iyo waxyaabo badan ay siiyeen ma kula tahay markii in Ameerikaanku uu ka gaabsanayo ama uu kaga leexanayo ayaga meel ayaga istiraatiijiyadooda amaan ay khatar ku tahay ma ayagu u helin doonaa bas Israa'iil u helin doonaa taas lafteeda soo su'aal taagan ma Israa'iil buu helin doonaa wuuna ka horeeyaa ayaga keenay labadii jeer wana u mahad celiyay waxayna bibi Netanyahu wuxuu toos u sheegay inay aad ugu farxsan istiraatiijiyada Mareykan u qaban doona isla sanadkii la soo dhaafay waqti horena waatay UN geeyeen Israa'iil weynada la wada ogaa haddana waxay yiraahdeen Israa'iil waa dawlad awood leh waxaan bedeli doonaa maapka inay bedelaana Israa'iil kaliya ma sameyn doonto waxa la sameynaya Trump intuusan tagin bay rabaan inay sameeyaan Arab 4.2 trillion ay bixisay waana ceeb mana anficin markii Iran soo weerareysay xataa waxa laga damsaday F-35 ay ka gateen Mareykanka haddii uusan Mareykan ku ogaanin yani ma isticmaali kartid waxaan Mareykan carab oo saaw caawiso isku haleen karin annaga oo naga goostay musaacadadiin inaan isku haleeno oo dal kale oo nasiin kara Janis ama aan la gali karo waaweyn inaan ka leexano waxay noqonaysaa nacasnimo dawladdu fadhiga kacdo ugu dambeyn Trump wuxuu weerar ku qaadayaa sida uu sheegay Greenland maxaa ka iman kara intaas Trump Greenland ayuu weerar ku qaaday sidoo kale haddana wuxuu yiri Thailand waxaan u daanayaa waxa iskale go'aankeeda China sidoo kale waad ogeed wuxuu yiri Ruushku intayna isku dhicin markii dambe labada Donbass iyo Kremlin waa inay Ukraine ogolaataa marka heshiis hoose haba dagaalamaan adduunka la qaybsanaya hadda bilaabanayo baarteeshiga bilaabanayo marka waxa weyn saas darteed way ka weyn tahay Soomaaliya arrintu way ka weyn tahay laakiin anaga inta noqonaysa muhiima dhulkanaga intaan la qaadanin waa inaan raadsanaa xulufo aan ku difaacno macnaheedu Greenland marka salaamada uu dhaqaaqay Greenland sababtu uu rabo waxa weeyaan meesha wax ku yaala Panama tawa fahamsanahay Greenland hadduu u dhaqaaqo oo aan u jeedno Yurubna ay gacmaha ka laabatay ama ay awoodi weyso inay iska dhacso maxaa iman kara adduunku sida uu ra'iisul wasaaraha Canada sheegay Faransa sheegtay systemka adduunka uu burburay kala gurug jiro maadaama uu burburay Mareykan uu ka dhabeynaya ma ahan Greenland kaliya Canada iyo wax ka qaadan doona Mexico wax ka qaadan doona wuxuu rabaa inuu imperatoriyada adduunka wax ka noqdo Soomaaliya uu rabaa carabtaas oo iska yani lacagtaas inkastoo baraarugeen carab oo sanadkii la soo dhaafay Sacuudiga Imaaraadka iyo Iran ay ku biireen BRICS ayagoo og inay khaldanaayeen adduunka dhabu bedeli doona kuma xidhna barnaamij meeshan uu raba kaliya laakiin wuxuu diray wuxuu isugu yeeray generaaladii dhan ayuu sanadkii hore isugu yeeray wuxuu u diray gacanada adduunka mara meelaha weakness ka jira inay soo sheegaan number 1 waa Soomaaliya sanadkii la soo dhaaf weeyaan generaalada waxa la isugu yeeray isaguna wuu joogay istiraatiijiyadii ugu weyneed baa 100 sano Mareykanka ugu dambeyn waxa isleedahay xarimahan hadda dhacaya dunidu wajiga nooca u bixin karaan waxay u bixin doonaa waddan waxay la qaadi doonaa horta waa laga heshiin doonaa adduunku system la'aan ma socon doono waxaan hadlayay UN takii xukumay inuu systemka adduunka sii socdo oo dhibaato ka jirto adduunku san kuma socon doono oo dabcan haddii system la waayo adduunku waxay noqonaysaa sidii hore marka saas darteed waxay noqonaysaa in Mareykanku uu isku dayo inuu adduunka qabsan karo China iyo Russia waxay doonaan inay ayagu ka hor imaadaan ee danahooda ilaashadaan saas darteed dalal ayaa la waayi doona hore u sheegnay dalal way weynaan doonaan marka waxa la rabaa dalku marka waxa jirto saddex shay in dhaqaalaha badiso inaad military ku dhiso in alliance ayaan haysanaa maadaama aan ku naallo
استراتيجيك ugu fiican adduunka oo lagu dagaalamayo Europe meesha wax u mari leedahay 22% iyo caalamka China iyo Russia inala jiraan marka annaga laga rabaa inaan isku haleenin aanan goonin ayagana laakiin aan furno xulufo kale saan u badbaadino jiritaankanaga waxaan sheegi doonaana qaar badan oo hadda dhahayo Somaliland iyo annaga iyo Somaliland oo isla soconnaa ayaa waxa laga yaabaa biri anagoo wada ooyeyna inaan difaacno wixii aan wada dayacnay mahadsanid Dr. Shaafici inta soo soo gaweynayna barnaamijka gaarka ah aan kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay ee Trump kaga hadlay ama ku dhaleeceynay Soomaaliya inta mar dambe ku mid doono nabadiina